walaal ururka himilo waxaa la asaasay 2006 ruuxaantii taasoo ku timid rag dad intellectual ah oo reer Netherland inay isu yimaadaan kadibna ay ka wada tashadaan ruuxaantii waxaa fikir yimid uu ahay oo markaa baahi taagneed oo gudihii wadanka iyo gudaha Netherlandba wadankii dibadda Soomaaliya iyo gudaha Netherlandba wax loo baahi jirtay ayaa loo asaasay ururkan wallahi sanadkii hore ayaan bilownay iyo sanadkanba wuu socdaa waxaan rajaynayaa inuu noqon doono mashruuc taxana ah waa mashruuc aad u ballaaran waa runtii mashruuc aan dhihi karo mashaariicda EFSAN ayuu ugu muhiimsan yahay howlaha aan qabanay waxaa ka mid ah horta mashruuc waxyaabo badan isugu jiraa waxaa ka mid ah akhtarlaatinga ilmaha la celiyo oo marka off fooding ayaa soo gelaya off foodingkaas waa qabanaa discrimination wacyigelin ayaan ka sameynaa waa iyo partner geveld yani qoysaska isku dhacayo guurka qasabka iyo kurtigooda awareness ayaan ka sameynaa runaantii mashruucana waa mashruuc tixgelintiisa leh oo maadaama wadankii laga yimid oo wadan kale to biooyin kala gedsan la yimid wax ka taraya weeyaan si Soomaalida awareness loogu siiyo runaantii anagu ilaa hadda waxaan ka fulinay magaalada Amsterdam ayaan ka fulinay mashruucu markuu waa mashruuc taxana ah bishiiba mar ayaan qaban jirnay shirarka aan qaban jirnay waana la iskugu imaan jiray ugu yaraan waxaa ka soo qaybgeli jirtay 20 25 15 yani dadweynaha Suudada iskugu jira wayna u bogeen in fact waxayna mar walba naga codsadaan in mashruuca uu soo istaagin mashruuca ko marka u horeysa waxaan u sameynaa waxay u badan yihiin ragana oo u sameynaa dumarkana way ka qayb qaataan marmarna waxaan sameynaa dual group dooda ayaa dhaca oo la iska soo horjeesto dhalinyarada kamid ah ayagana waa u sameynaa waxaan guud ahaan dadka ay khusayso dhan wadankan jooga waa u sameynaa nooc walba yihiin runtii Soomaaliya waa ka howlgalnaa oo mashaariic badan ayaan ka qabanay oo iskugu jira iskuulo xagga caafimaadka biyaha waxyaabo badan iyo waxyaabaha abaaruhu ay saameeyaan abaaruhu markii imaanayaan iyo biyo dhaamiskaas waa sameynaa dadka ay dhibaatada gaartana waa tabarucnaa laakiin hadda mashaariicdu way badan yihiin laakiin mashruuca hadda aan wadnaa wuxuu yahay mashruuc ka socda isbitaal ah magaalada Girijir ka socda ayaan hadda wadnaa iyo mashruuc kale to Buurt House oo kaga dhisayno magaalada Matabaan anaga ururada kale waxaan kaga gidisanahay 200 qof ayaa waxay bixisaa leedan badaraaq bixisa oo lacag bixisa lacagahaas ayaa urura markay ururaan ayaan u garanaa meelaha baahida ay taagantaa mashaariicda aan kaga qabanaa runaantii horta waxa waaye markii hore waxaan iskuul ka dhisnay aan ka qayb qaadanay iskuulka Girijir waa ka qayb qaadanay dhismihiisa waxaa kaloo jiray iskuul yiraahdo Hilaac oo aan ka sameynay baraagaha biyaha ardada oonka ay u oomanayeen baraaga ayaan u sameynay waxaa jira meel kale to Qamita House aan ka sameynay oo la yiraahdo Godoon la yiraahdo ayadana Qamita House aan ka sameynay iskuulna Mareer Gur ayaan ka sameynay waxaa jirta wadankanagi malaha mashruuci la oran jiray Early Warning System and Food Security taasoo macnaheedu tahay marka abaaruhu inay iska dhacaan dadka marka urur ahaan anaka himilo waxaan la xiriirnaa FCAU qoladahan la xiriirnaa oo FO da hoos tagta marka ruuxaantii saaxiibo ayaan ku leenahay markii abaaru jiraan iyo marka kale taba marka taasi waxay sameeysaa inaan marka emergency waxa anaku aan u dhigano dhibaatooyinka soo socda taas oo marka aan dhaqso kaga jawaabno runtii ururada kale waxyaabahaas aan dheernahay oo mataqaana emergency-ga waa ka qayb qaadanaa waxaa kale too jirta mataqaana iskuul yiraahdo Kulmiye oo ku yaala Guriceel oo waqti run ahaantii dhacday inuu kala go' dhaco asna waan lacag baan ku deeqnay soo socdo marka howluhu aad u fara badan yihiin ama abaaraha biyo dhaamiska tabaruca dadka waxyaalaysan waa sameynaa initiative-kii oo daadadka lagu gurmanayay ruuxaantii xafiiskan himila ayuu ka soo baxay in dadka Netherland iskugu yeero oo ka qayb qaataan howshaas waxay ka soo baxday halkan ka bacdina aan ku wargelinay gudoomiyaha EFSAN Ali Cabdi Waare taas oo markaa ka bacdi aan dadka weynaha Netherland aan isugu yeernay taas oo si mug iyo milgal ay uga qayb qaateen ayna ku mahadsan yihiin dadka reer Netherland midnimadooda iyo sida Soomaalinimadii u muujiyeen ruuxaantii horta dhib ayaa jiray oo wadanku waa la socotaa isdiidiid badan oo siyaasadeed ayaa ka jiray meelaha qaarna lama tagi karo laakiin hadda waxaa noo qorshaysan ayaa waxaa ka mid ah
مشروع deforestation oo dib loogu sameynayo mataqaana dhulkii laga xaalafiyay keymaha geedaha laga jaray in dib aan deforestation ugu sameyno oo dhirtii dib loo abuuro nurseryal aan abuurno waxa kale oo barnaamijkeeda wadna ay tahay dadku inaynu ku wacyigelino inaysan geedaha jarin oo awareness-kaas aan sameyno iyadana qorshaha ay noogu jirtaa waxa kale oo qorshaha noogu jira maadaama biyo la'aan ay dhacday inaan sameyno water reservoirs meel biyaha lagu kaydiyo waxa dhacday biyuhu baliyada way iska galaan laakiin markii ciidii ayaa dhuqdo moisture-kii quantity biyo dhaqso way dhamaadaan marka waxaan rajeynayaa inaan bixin doono waraha iyo baliyada wadankaas ku yaalo oo gobolada aan ka howlgalno kadib si biyaha mugu quantity-gooda looga faa'iideysto mashaariic ayaan isla fulina ay jirtay annaka iyo iyo qolo reer Belgiya iyo Ford qolo dhaho Ingiriiska marka xiriirkaas hay'adaha samafalada waa leen qorshahanaga wuxuu yahayba in mataqaanaa himilo waxaan ugu qoray South and Central ayaan ka howlgalnaa ma aha kuma koobnin gobolada dhaca kaliya South and Central buu ka howlgalnaa oo iskuulkan jaamacadda Al Salam University ee Muqdisho annaka ayaa qalabeynay kombiyuutarada yaala annaka ayaa sameeyay u dhignay jaamacadda ku taageernay gobolka Shabeellaha Hoose dhibaatooyin marka dhacay iyo daadad iyo dhibaatooyin ka dhacayna gargaar ayaan u fidinay dadkii wax abaaro dhibaatooyinkaas wax yeeleen ayaan gargaar u filinay marka ma aha mid aan ku xayranahay kaliya gobolada dhexe ee South and Central buu ka howlgalnaa waxaan Soomaalida ka caawin waxaan kamid ah awareness ayaan siinaa wacyigelin haddaan tusaale yar ku soo qaato waxaa jira mashruuc SBA-da aan ka qaadanay oo ahay doorka aabaha uu ku leeyahay qoyskiisa inuu qaato runtii waxa waaye wadankan Netherlands waxaa kamid ah caymisada kamid ah caymisada iyo guryaha iyo markii lacagaha ay ku go'aan iyo dadka ay ku go'aan waxaa kamid ah mataqaanaa waxyaabo uusan filaynin oo ku soo baxa waxyaabahaas dhan waa ka caawinaa aad iyo aad uga hadalnaa runtii waxyaabaha aan xoog saarnay kamid ah ay kamid tahay waayo dadka hada integration aad ku dhex sameeyeen oo dhex gelin waa in wax badan ka barataa dalkana waa dal horumaray weeyaan ma fahant adoo dhaqankaada iyo diintaada iyo wax walba ay ku gooni yihiin haddana horumarka wadanka ka socda waa inaad la jaan qaadi karto mataqaana aad la socon karto weey ilaa wadanka asaga ku nooshahay runtii horta barbaarinta xaggeeda dhibaato badan ayaa jirta dhibaatooyinka jira waxaa kamid ah haddii aad iskuuladan hadda aad hooyo unbaa ilmihii jiidayso odayaashii lama hayo cunugana wuxuu leeyahay laba macallin oo aabi iyo hooyo ayuu leeyahay waayo haddii doorka hooyada ay buuxiso macallimineedii meesha waxaa ka bixaysa doorkii aabaha ayaa ka baxaya marka cunugii cunug kombalida hofida maaha ruuxantii hadda ka hor ayaa waxaa dhacday mataqaanaa institute ku yaala wadanka Canada ayaa wuxuu soo saaray cilmi baaris ah cunuga aabaha iyo hooyada ay koriinkiisa joogto u yihiin oo ka qayb qaataan mar walba la joogaan uu ka taya fiican yahay Thailand-iga xagiisa cunuga hooyada kaliya ee wado oo inta badan markaa hataa warays aan la yeeshay nin howlahaas ku mashquulsan oo la yiraahdo macallin Cabdishakuur xalan la yiraahdo markaan ka waraystay wuxuu ii sheegay iskuulo kuwaas ah oo hooyooyinka kaliya ilmahooda oo ilmihii la qabsan waayay ilmaha kale iskuulo khaas ah inay leeyihiin ayuu magaalada Amsterdam ugu sheegay marka waa dareemi kartaa marka waa ku wacyigelinaa in aabaha iyo hooyada isla joogaan in ubadkooda ay ka warqabaan inay mataqaanaa tuition badan ay u sameeyaan inay la saaxiibaan waayo annaka hadda waxaa jira maqaal aan rabno inaan soo saarno himil ahaan oo ah la saaxiib ubadkaada si uu badbaado macnaha ubadkaada la saaxiib si uu badbaado waayo ubadkii waa inuu wax ku awood u yeeshaa inuu wax ku sheegan karo uu ku dhihi karo basaan isaan laakiin hadduu ka cararayo oo ka baqayo oo wixii ku jiraan qatarteeda leedahay marka awareness badan siinaa waa sukeena mar walba wacyigelinta waa wadnaa waxa weeye mashruucan SBA waa mashruuc ka socda magaalada Amsterdam qamiitiga ayaa bixiya marka tartan ayaa loo galaa runtii sanadahan oo dhan annaka number 1 ayaan galeynay taasina waxay ku muujinaysaa taya ahaan waa ururo badan oo kala gedisan oo Soomaali Afghanistan Netherlands Iraq Turkish Moroccan ayaa ka qayb gala ururka himilo mar walba nasiib wanaag waxaan galnaa number 1 waayo fikirkii hore ma geenay fikir kale ayaan la tagnaa mar walba sanad walbana waa helnaa haddana waa wadnaa SBA waa mashruuc doorka aabaha uu ku leeyahay qoyska ayuu ahay ruuxantii markii يعني وذا الشقينتي في عناد أو سميننا روحانتي سنة كان أبالجودة نقصيين كهلني أو واتنا روحانتي ما فهمتي مركب وحنا إن حفظت كفرنا وبضربة لقديسة ودنك لقديسة هوي إخنا لانجو لقديسة هوي مركب وكفي عينه
ayuu wax walba hodan ka yahay oo hata waxbarashada ay u sahlanaan kartaa waana research la sameeyo waaye researchkaas wuxuu soo saaray luqadiisa hooyo marka uu ku fiican yahay oo wadankiisa uu ku fiican yahay inuu talentigiisa iyo waxbarashada ay u sahlan tahay luqadaha kalena u sahlanaanayaan taas anagoo ka duuleena runaantii macallin Cabdikariin ayaa wuxuu sameeyay howlahaas aad iyo aad u wada iskuul ayaa jira uu ku dhigi jiray sit volunteer uu dhigo oo bilaa lacaga ubadka Soomaaliyeed runaantii taya ahaana markii loo fiiriyo ubadka kaleeto way ka taya wanaagsanaadeen oo researchkaas waaba sameeyay oo hadda waa hayna waana ku taageernaa maal dhawtana runaantii Isboola ayaan ka soo furnay Isboola ayuu tagay oo mataqaana Cabdikariin uu barnaamijkaas ka soo qabtay waxaan ku dhiirigelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed in ubadkooda ay baraan luqadda Soomaaliga waa muhiim luqadaas in la baro Soomaaliga waana wadnaa xoogana saarayna